كدكتورو إن أسديبتو مرة مختياقة هاين دبادو نقضو كي كادن بيي هورتادا مهمة سيدتك كواركان بلسي وحا مهمة سيدات نفتادو واركتو قفك النفتي سكو كالسون وكمية ورنا يقلد هانا وابل مرنتيسا نين حكمت بدنايا وحي ويديين محاد وارقو سويد كوكو حمايا وحي وقوتشو وابسيو قصديا ما حكمت ياكو جرتا إنا قنينو أي قنيني مركي كليهن ما ووديد وحي كومو جينين حدكا وودو دا بلسي ما هادي حدكاagii shahaadadu waxay sugtaa inaad aqoon leedahay balse ma sugto inaad fahamtay hagu warabin dhibaatooyinkaaga kuwa kale boqolkiiba 10 ma daneynayaan boqolkiiba 80 waxay ku farxayaan maqalkeeda haddaan ku cajin fikirkayga iyo dhaqankaygu anigu kuma fikirin inaan u soo tooso maalin kasta ujeedada inaan helo keelitaankaaga quraarada la jibiyay dhaqsale ayay u dhamaataa jabaqdeedu waxaana hadha qayb kamid quraarada taasoo dhaawacda qofkii qabsada sidaasoo kale hadalka dhaawaca leh wuu dhamaadaa balse wuxuu ku hadhaa qalbiga kaasoo xanuujiyo waqti dheer qayb ka mid ah kalsoonida nafta in aanad kuwa kale isbarbar dhigin qayb ka mid ah raaxada in aanad umuurahooda gelin qayb ka mid ah xikmadda aamusnida ahaw mid faraxsan daqiiqadan waa qayb ka mid ah noloshaada haddaad isku dayeyso tag ilaa dhammaadka haddii kale maad bilaabin mar kasta dadka guulaysta waa kuwa aaminsan inuu waxaa samayn karo inaad ku tiirsanaato kuwa kale waa daciifnimo inaad naftada ku tiirsanaataana waa awood ku tiirsanaanta wadajirkuna waa halka ugu sarraysa awoodda hortaada waxaa laba doorasho inaad aqbasho xaalkaaga duruufeed iyo inaad qaado mas-uuliyadda inaad beddesho duruuftan khasaare ma jiro sidiisaba inaad guulaysato iyo inaad wax ka barato si kastay u dheerayso si kastay u gaabiso haddii uu masiirku yimaado wuxuu gaadhaa kii dalbaday markaad aragto tallaabo wanaagsan raadi mid iyada ka fiican ma ogid marna natiijooyinka ficiladaada laakiin haddii aad waxba samayn ma ahaanayso halkaa wax natiijo ahi u dhegayso si aad u fahanto ma aha si aad ugu celiso ahow mid awood badan ka dhig iyaga inay ku weydiiyaan sidee adigu weli kama suulin aad dool caddaysee waddada ugu fiican aad ku rumayn karto riyadaada waa in aad ka toosto markaad dareento inaad ku sugan tahay wejigiis dhiibitaanka ka fikir kuwa rajaynaya inay arkaan guuldaradaada kuwa awoodda badan maaha kuwa guulaysta mar kasta kuwa awoodda badan waa kuwaan isdhibin markay guuldaraystaan waxyeellada aan dhabarkaaga jabin way ku xoojisaa ku argooso guushaada ku dil aamusnidaada ku ciqaab maqnaashahaaga kuna guulayso dhoolcadaynta markaad go'aansato inaad safarto dariiq ayaa kuu muuqanaya ku soco lugahaaga jaban hana kaga tegin raadka gacmahaaga garabka qof waxaad maalin gaadhi doontaa in wixii kugu darnaagu soo maray inay ahayd wanaag weyn oo ku badbaadiyey si uu kaaga dhigo mid ka awood badan sidaad imaka tahay waad mahadsan tahay go'aanadii baray inaan qof walba siiyo qiimihiisa dhabtaa warqadda adigaa maanta leh ma jirto cid awoodda inay burburiso riyooyinkaaga saamax cadowgaaga laakiin ha ku kalsoonaan kalsoonidu waa biriijka saxda kaasoo la maro ha barbar dhigin naftaada kuwa kale haddii aad sidaas samayso waad caydi naftaadii haddii aad ku kalsoonaato naftaada waxaad heli doontaa kalsoonida kuwa kale ma dareemaysid dhadhanka nolosha ilaa aad naftaada ku kalsoonaato waxaa kugu waajiba inaad naftaada ku kalsoonaato haddii aanad naftaada ku kalsoonaan waa kuma kugu kalsoonaanaya inaad mar walba naftaada ka sheekayso waxay ku tusinaysaa in aanad ku kalsoonayn waxaan gaadhay heer aanay cidna suuragal u ahayn inay sababto jabintayda ilaa aniga mooye fikta kalsoonidu waa inaad aamusto markay kuwa kale ku jeesjeesayaan maxaa yeelay waad ogtahay waxaad tahay iyo waxay yihiin kalsoonidu waa xirfadda aan ciidanka lagaga guulaysan karin jeclow dadkoo dhan laakiin ku kalsoonow in yar shay kasta suuragal way u tahay inuu yeesho fursad labaad ilaa kalsoonida mooye dadka aan awoodin inay shay xaqiijiyaan waa kuwa ku odhan doona adigu ma awoodid markuu shay waliba u muuqdo inuu ku daaliyo oo u shaqeeyo caqsigaaga xasuusnow inay diyaaraddu u kacdo jaa khilaafsan dabaylaha balse ma raacdo ka naftiisa ku kalsoon waxau leeyahay qosol uu kaga duwan yahay kuwa kale kalsoonida naftu waa dariiqa guusha
dadka aan weligood gafin waa dadka aan waxba baran haba yaraatee. Su'aashu ma aha siday dadku ku arkaan, balse su'aashu waxa weeye si aad naftaada u aragto. Ma jirto adduunyada shay sii waaraya xataa mushkiladeenna